بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. فيديوغان waxaan u daba socdaa videogii ka horeeyay ku saabsanaa samafalka waalidka. Videogan insha Allah ta'ala waxa uu ka sheekayn doonaa qiimaha uu leeyahay birul waalidiinka anaga soo qaadanay sheekooyin ka faa'iideysi wacan. dad videogii hore rabtay inaad daawato linkiga dusha sare ka soo baxaya. haddaan soo qaadano birul waalidiinka ku saabsan nabiyullaahi Ismaaciil markii uu aabihii kulwan ku qalaya. Nabi Ibraahim baa loo soo waxyooday riyana loogu soo waxyooday waxaana ku riyooday in aabbo waxaan arkay anigoo ku qalaya. marka arrinka ka waran uu Ismaaciil yiri aabahayo wixii lagu amray samee insha Allah kuwa sabraayan ka mid noqon doonay. hadalka ka dhansanaysa birul waalidiinka in uuna oran aabaan maxaan sameeyay dambigaygu muxuu ahaa maxaas laygu leeyaa intaas oo dhan ma oran laakiin wuxuu yiri aabba hadii sida lagu amray samee. qiso kale oo caana mar walba aad maqashaan saddex nin ayaa israacay god bay galeen godkii ay galeen ayuu dhagax weyni meeshay ka soo galeen ka awday. marka ay keeneen fikrad in oo nin walba shaygii uu Ilaahay dartii u qabtay ee ugu khayr badnaa inuu sheegto. saddex nin way ahaayeen marka saddexda nin kamida ayaa waxa ku jirtay in uu yiri waxaan lahaa ariga mar walba on xaafada keeno on kaliso hooyada iyo aabahay baan sii jiray kadib baan carruurta sii jiray. saasan caado u lahaa. maalin maalmaha kamida baan arigii meel dheer geeyay markaan soo hooyo habeennimadii markaan soo hooyay baan imiday buu xaafadii oo hooyada iyo aabahay seexdeen. waan soo lisay buu yiri waan u keenay hooyada iyo aabahay maan jeclaysan buu yiri inaan hurdada ka kiciyo. halkii aan fadhiistay waan sugay buu yiri ilaa intii toosayeen sidii aan u joogay buu yiri ayaa igu soo bariyay waagii soo bariyay caanihii hooyadii iyo aabihii ugu dambeyntiina uu carruurtiisii siiyay. nin walba camal dar Ilaahay u qabtay buu sheeganay maalintaas. Ilaahay dhibaatadii iyo dhagixii meesha ka awday uu ka qaaday waxaana kamid ahayd in waalidka ninkaasi uu samafalay aawadeed. labada nin kale wax kale sheegteen isaguna taasoo sheegtay sidii uu Ilaahay meeshii dhagixii kaga qaaday. kuwaas waxay ahaayeen sheekooyin ku saabsan